زمزم يصاحب هذا وحي حنبارسين فكر إن صوماليا سجود وحلوه قرط إلى عول بأيتها مدن قدومية وحن كلنا كسر دواو وضك النرويج عشرة نمارتي أو سوق بقابي حفيزك النرويج زائد زمزم فونديشن وأنا عشرة أجوه الرئيسي أنت على صومالي سقوط ماذا نصيبة يرتي عشرة أجوه الرئيسي ماتي كادي أنا جرى فرحت يوحنا تاي وراك بدن مركب كلنا مدن قدومية كسر دواو مرة بعد مرسد حاد وأنا ما سنتين أمان سيد ورا لماذا حشمة عشرة وسوق بقشين وحاول داودنا فيلم أنا أوريدي فوق الشيء قدر دقيقة رأى سي أفهم تان زمزم وحى يتهاي بريفلي يوحى أي قبضتي وعي المحير أف إلا جهد لو حكيتين بدل وحى عن قبضنا إن إذا تصنع هذا ما سنتين. To respond to the humanitarian plight, to continue to cause human suffering and the death and displacement of many innocent populations. intaasi waxay ahayd waxqabadkii hay'adii markii la aasaasay 1992 ilaa 2010 marka waxa laga yaabaa in la isku diina abaarta ugu badan 2011 dhacday maxaa loo diyaari waayay marka waxa waaye computerkii shaqada qabtay socdo marka asaga sheegi doono waxqabadkii 2011 sidee u dhacday iyo abaarta intee la ekeed waana sababta ciwaanka cashada uga dhignay abaartii Soomaaliya ka dhacday iyo saameynta ku reebtay dadka aan tabarta lahayn magacay waxa la kala shubin doomay waxaan marka koobaad mahad balaaran soo jeedinaya Samson Foundation khaasatan xafiiskeeda Oslo gudoomiyaha Ibrahim Oday مثل هذا وحان نمط علينا dadka boorka fadhiya xildhibaanada saaxiibka maxamed cilmi iyo chairmanka board chairmanka maxamed axmed oo nooga yimid muqdisho martida noogu marti sharafka waxaan ku leenahay soo dhawow aad baan ugu faraxsanahay maanta in la joogtid waxaan siinayaa xagga gabdhaha magaceeda aawa waxaan noogu hadli doonto xaali marweynii mudanayaa sharafka inooga soo imaatay waddankii sharafta lahaa siiba haddana waxaan marlabaad ku celinayaa maxamed axmed walaalkeen inooga imaaday maaragtay waddankii hooyo inuu intaas hoosana kasoo shaqaynayay haddana madaxda ka ah ayaan aada soo dhaweynayaa aan leenahay soo dhawow anoo ku hadlahaya codka haweenka Soomaalida codka maaragtay shacabka Soomaaliyeed ee Norway intaba wax awada meeshana laga tusay wax caadi maaha niga walba taageersanay soo dhaweynay kaalin fiican oo mugle diyaar u nahay inaan ka qaadano soo dhaweynta iyo xafiiska halkaa laga furay Samsam haddana wallaahi caawa wax dhiirigelina dhalinyaradaasi waxay qabteen jazaakumullahu khayran leenahay waa soo dhaweynaynaa duumiyana waxaan leenahay soo dhawow walaal Norway waatana oo ku soo dhaweynay حفيز كان إن شاء الله تعالى ونهار مرنا ونهار بيتنا ونكون عرضنا وحصل يا رب نلقى يرضى هذه هذا القصير بصير نبي يرمى نكال عاور ماشي حدين سودوينتا قدوميها شورى زمزم محمد أحمد محمد علينا وصلك سودو سمسة معنا وكفالة عن ما هم كبير يسمون شقينا إن لو ده كل لحدي إلى هذا وشقينا وأنا كفر أحسن هاي ما أنا وشوفنا أحسن وصل بقبل إنجنير فاضل على مدر وحلبان كله الدجاج واصل إذا كلام عاو حفلة إذا نقص قبل الشمال كما العلينا فاضل قف واحد بدل كقوة تعرف صومال وأنا دريم كتاع عدك المقلة إن معناها أي سنة هن عد سهلة وحكوا شو وحي أمض وقبتين وأنا فرح سنة عاو حفلة دائما اللي جوفت كلمة إذا نسينا إذا عاو حيال كانوا في إذا مجا السياسيين في النرويج على عادي يقولها في الحد وين وأنا أنت شركة قلب قليتي يقول في الحد وين إذا كقلب قلورنتي sababta ay tahay waxa weeye hay'ad dadka Soomaaliyeed ee tabaaleysan xuquuqda waxaan jeclaan lahaa in
hay-adaha ka jira Soomaaliya iyo meel kastoo Afrika ee maaragtay United Nations wadato dhan inta laga ururiyo kuwan lagu wada bedelo aad baan soo dhaweynayaa Samsam markii ugu horeysay aan bartay hay-adan Samsam Foundation waxaa ii yimi ninkan lagu naanayso boodaaye Maxamed la yidhaahdo Ibrahim Maxamuud isla markiibana waxaan arkay waxqabadkii ay ku tallaabsadeen oo ahayd markii abaaruhu dhaceen waxay haayeen hay'adihii ururinayeen weydin lacagta Red Cross la shaqeeyey muddo maalina baa lagu ururiyey 100,000 dadka Soomaalida oo dhan way ka qayb qaateen hase ahaatee iyaga soo abaabulay idinku waad taageerteen kursigiina waan ku fadhiisanay dee tallaabadii labaad maxay tahay marka maxay noo soo kordhay baa isweydiin leh marka hore waxa weeyaan 5 guddi bay ka kooban tahay annaga waxaana lagu daray 3 guddi saddexdeedii Soomaaliyeed guddida koowaad waxa weeyaan guddida caafimaadka iyo waxbarashada gabadha ubax la yidhaahdo lagu daray May Baasha ayaa fadhiya halkaas guddida labaad waxa weeye guddida gaadiidka iyo biyada waxaa fadhiya ubax anigana guddida qorshe ugu dambeyn warku waa dheeraaday cashadii waa soo dhowdahay waxaan idinka dhex baxayaa waa idinkii ustaad Maxamed Axmed Beerey boorka ugu sarreeya hay'adda Samsam oo booqasho noogu yimid dalalka Scandinavia ka caawina jooga dalka Norway halkan waxaa kugu dhan jaaliyadii intee ka koobnayd dhaqan odayaal haween waxgarad aqoon-yahan ganacsato sports waan soo dhaweynaynaa ustaadka idinkana aad baa u mahadsantihiin بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ugu horeyn xildhibaan Faadumo Madar odayaasha jaaliyadda Norway dhalinyarada madaxda ururada bulshada bahda saxaafadda madaxa xafiiska Norway dhammaan marti sharafka kala duwan caawa halkan igu soo dhaweysay waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u mahadcelinayaa dowladda Norway oo runtii gacan weyn ka siisay dadka Soomaaliyeed sidii ay ugu noolaan lahaayeen dalkan soo dhaweysay wax badanna u fududeysay sidoo kale dadaal xoog leh ugu jirta xal u helidda khilaafaadka siyaasiga ama xal u helidda dalka Soomaaliyeed oo dhan walaalayaal runtii Zamzam Foundation waa hay'ad samafal oo wadani ah sidaad ogtihiin walaalayaal waddankeena dhibaato badan baa ka dhacday goobjoog ayaad wax badan u tihiin ood ogtihiin laakiin haddaan si kooban idinkugu soo bandhigo intii ugu dambeysay oo runtii la iga codsaday inaan ka sheego halkan abaartii hadda ugu dambeysay oo runtii lagu tilmaamay sida aad akhriseen ama maqasheen ama aada la socotiin dhammaantiin 60 sano ee lasoo dhaafay abaartii ugu ba'need ee ka dhacday Soomaaliya inay ahayd waxay ahayd runtii abaar ballaaran saameysay dhammaan Soomaaliya ee aan ka tegin waxba ka tegin bay ahayd runtii arrintaasi xanuun badan ayay runtii u geysatay dadka Soomaaliyeed waxay gaartay xaalad runtii dhimasho iyo barakac iyo darxumo iyo rafaad badan oon la soo koobi karin laakiin ilaahay mahadiis waxaa ka dambeysay ilaahay naxariistiisa oo ballaaran oo waasaca ah roobkii dayrta oo ugu dambeeyey hadda si fiican u da-ay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu barwaaqo siiyo dadka Soomaaliyeed wixii igu daraa aniga markaan ka hadlo dhibkaas intuu jiray dareenkayga igu ba'naa oo aan la kulmay si gaarna ii saameeyey wuxuu ahaa nin oday ah oo ka yimid magaalada Buulo Burto
ayaan la kulmay oo 70 jir ah xafiisku noogu yimid ninkaas waxaan weydiiyey maxaa dhacay meesha aad ka timid ee gobolka maxay saameyn u geysatay abaartu waa nin 70 jir ah sheekha waaweyn wuxuu yidhi 70 sanaan jiraa waxaan weligay taariikhda isoo marin ayaa isoo maray buu yidhi sanadkan maxay tahan ku idhi wuxuu yidhi dad dhimanaya oo oon iyo baahi u dhimanayo oo aan dul taaganahay waxna aanan u qaban karin oo aan isaga tegay ayagoo meesha ku dhimanaya taas ay ugu daray buu wixii soo maray waxaad dareemi kartaa marka xanuunku inta uu la egyahay marka aad dul taagan tahay qof bini aadana oo dhimanaya oodan awood u heli karin gaajo u dhimanaya ama haraad u dhimanaya awoodna aadan u heli karin inaad siiso wax aad ku badbaadayso dareenka runtii iigu culus wuuna ooyey markuu ereygaas ugu yiri ninkaas odaga ah dareenkaas wuxuu ahaa dareen dareen runtii aada u taabanayo qof kasta oo damiir leh ayuu ahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuusan dib ugu soo celin dadka Soomaaliya dhibaatadaas walaalayaal haddii aan kusoo noqdo hay-adda Zamzam waxay ka shaqeysaa howlo ballaaran oo ay ugu horeeyaan waxbarashada caafimaadka biyaha nadiifka ah agoonta iyo dhammaan samata bixinta dadka dhibaataysan waxaan u baahannahay runtii aniga oo abiil usoo qadimaya caawa jaaliyadda ballaaran ee Oslo inaan helno dad badan oo sida hadda xildhibaanadu sheegtay jaamacadihii baa lagu jiraa waxbaa la bartay dalkii in lagu soo celiyo dadkaas wax bartay ma dhahayno ha lagu caasiyo reer Norway abaalkooda waa la gudayaa waxay ka shaqayn doonaan insha Allah xiriirka dhow ee walaalnimo ee saaxiibtinimo ee sokoyeynimo ee ka dhaxayn doona insha Allah markii Soomaaliya ay kusoo noqoto khariidada caalamiga si dhab ah ay u noqon doonaan insha Allah bixiyeen waxay noqon doonaan safiiradii waxay noqon doonaan insha Allah dadkii ugu muhiimsanaa calaaqadaas laf dhabarta u noqon lahaa laakiin waxaan ka codsanayaa walaalaha reer Oslo inay gacan sida ay ballan qaaday xildhibaanadu idinkuna aad wada ballan qaadeen inay gacan ku siiyaan xafiiska Zamzam ninkaas dhalinyarada ah oo la sheegay intuu la muuqdo ka weyn yahay in gacan lagu siiyo hawshiisa insha Allah anaga waxaan doonaynaa inaan isla garab taagi doono wax alla wixii aan awoodeeda leenahay aad iyo aad mahadsantihiin aad iyo aad baan markaas ku mahadcelinayaa aad iyo aad baan runtii dareenka fiican oo aan kala noqonayo Oslo waxaan u gudbin doonaa insha Allah dhammaan dadkii asxaabtii iyo walaalihii kale ee jiray dhulkaas insha Allah salaantiina waan gudbinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh